Play Store wuxuu ka mid yahay apps-keena ugu isticmaalka badanahay mobilkeena laakiin waxa dhici karta inaad aqoon farsamooyin fara badan oo aad ku isticmaali karto Play Store-ka gudihiisa. Hadda muuqaalka waxaad kula wadaagi doonaa 5 farsamo aan hore lagu sheegin oo aad ku isticmaali doonto Play Store-kaaga. magacaygu waa Garaad xagga naga daawansana waa channelka muraso.com waxa ka codsanaya hadii aad ka hesho sida caadiga muuqaaladan ku sharaxno abiska in muuqaalkan like asarto una shirkasa asxaabtada kale si muuqaalada sano kala aanu soo badino farsamada koowaad ee ku isticmaali karno Play Store-keena ayaa waxay tahay caadi waxaan naqaanaa markaynu u baahanahay in application aanu ka dhex degsano Play Store-keena in application-ka aanu download gareysano kadib aynu eegno xataa markii qaar kood inagoo si buuxda application-ka ugu baahnayn laakiin u baahan tijaabin aba qaab ku shaqeynaa eegnaba in dantan ugu khasabto in application-ka aanu ku shaqeyno mobilkeena laakiin ka war hadii aad u baahan tahay amba awood leedahayba in application-ka marka aad u baahan tahay aad laba shay ku banaayihiin shay ah inaad caadi download gareysato iyo mid ah in tijaabo aad ka qaado ka hor inta aanad application-kii download gareysan si hadaba aad u furto farsamadan waxaan sameyn doonaa waxaan tagi doonaa Play Store-keena kadib settings-ka kadib waxaan ka sii dooran doonaa xaggan ay ku qoran tahay general qaybta marka ku dhufto waxaad ku dhufan doontaa xaggan ay ku qoran tahay Google Play Instant kadib xagga ayaad furan doontaa aba on aad ka dhigan doontaa caadi waxaan naqaanaa markaynu u baahanahay in application-kan ka degsano Play Store-ka in badana aynu ugu dhaqmo marka qaar koodba aynu ugu dhacdo in Play Store-ku inagu dhaho app-kan amba application-ka lagu matalayn dalkaaga inaad ku isticmaasho hadda si caqabada aad u xaliso waxaad tagi doontaa Play Store-ka kadib waxaad ku qori doontaa VPN kadib app-kan baad download gareysan doontaa VPN-ka markaad doonto waxaad sameyn doontaa Play Store-kaaga waxaad u diri doontaa restart kadib inta wixii ka dambeeya application-ka marka hore uu ku diyaar download gareysta si caadi ah ugu download gareysmi doona inta badan waxa nagu dhacda in marka qaar kood caruurteena ay naga qaadan mobilkeena kadib Play Store-ka ay galaan kadib ay ku soo dejiyaan apps aad u fara badan waxa dhici karta marka qaar kood in apps-ka qaarba marka loo eego caruurteena age-keeda aan lagu talagelin hadoo si taa aad u xadido waxa tagi doontaa settings-kaaga kadib waxa ku doontaa xaggan ay ku qoran tahay family adoo ka sii dooran xaggan ay ku qoran tahay parent control kadib xagga marka qortaad on ka dhigto waxaad gashan doontaa password-kaas oo hadhow tolo ah ka markuu islaha ilmahaagu application download gareyso uu diidi doono ilaa password-ka uu geliyo adigoo xagga kadib ka xadidi doona apps-ka aad ugu tala gashay in ilmahaagu ay dejistaan farsamada afraad ee aad ku isticmaali karto Play Store-kaaga ayaa waxay tahay waxaad awood u leedahay inaad xadido in apps-ka qaar kood marka aad download gareysanaysa illa adigu aad idan bixiso amba yaani password-ka mobilkaaga aad geliso ama fingerprint-kaaga oo kale illa aad ku aqbasho in app-ka install gareysa aan la dejin karin way waxa caqabad fara badan laga qabstaa marka qaar kood in qof kale mobilkeena qaado application-ku doono uu iskala soo dago si hadda farsamada aanu furno Play Store-keena markaan joogno waxaan tagi doonaa settings-keena kadib waxaan ku fadonaa xaggan ku qoran tahay authentication kadib ka sii dooro qaybta saddexaad kadib xaggan ayaad ka dooran doontaa waqtiga aad u baahan tahay in mobilkaaga marka download gareysanayso application uu ku weydiiyo password-kii kugu xidhnaa farsamada shanaad ee ku isticmaali karno Play Store-keena ayaa waxay tahay waxa dhici karta waqti xaadirkan video-ga daawanayso in time-ka uu ku saaran yahay Play Store-kaagu yahay time-kan cadaanka kaasoo ay dhici karto in marka qaar kood xataa habeenkii kale time-ka cadaanka aanu indhahaaga u fiicnayn si hadaba Play Store-ka uga dhigato time-ka aad u baahan tahay time-keedu ma aad u isticmaali karto waxaad tagi doontaa settings-kaaga kadib general-ka kadib ka dooro xagga ay ku qoran tahay time kadib dooro time-ka aad u baahan tahay inaad ku isticmaasho Play Store-kaaga